السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتي وسلامتهين غيارة شرفت له ميلبا جوكتان قاسة ددوينها كنا المريكان كا وحان رجينا يقف البوغوري له وحا أصوت على وراغدان صوت درت United States Census 2020 هايدان إنه وراقو صوت درت بيش ازدحاد دمات كذا إلا أفراد مرل بنا حسوسنا هي صوت درتا وراغانا كده بقيسا طبعا بوستيدا مركا فرتي وراغدان وكو جرتو قو صوت عدي هدبا هايدان وهايدا قابلسن مريكان تريكوبكا طبعا سنة والبو dadka Mareykan waa la tirikoobaa tirikoobka ugu dambeysay Mareykan waxa ugu dambeysay 2009ka waxaan lagu qiyaasay dadku nool Mareykan xilligaas 328 milyan iyo 200 kun oo qof inay ku nool yihiin Mareykan hada xilliga tirikoobka la soo gaaray waana la fududeeyay online ayaa laga dhigay marka waraaqda furtid waraaqdana ku jirta ka soo bixinayso guide oo ku guide gareynayso waxaa suubinaysaa waxaa booqanaysaa my2020census.gov markaa booqatid aa gashid dan kood 12 number halkaa waraaqda kugu qoran kood 12 number waa gelinaysaa booqo website-ka my2020census.gov dan kood 12 waraaqdan oo kale ka soo bixi geli markaa gelisid wuxuu ku leeyahay ma qofka adreeskan degan adiga for example maxamed faarax adreeska madaa degan ha oo ku fanqonaysa leedahay application-ka wuxuu qaadanaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo waxaa laga rabaa dadka guriga dhan wada degan inaad register gareysid ka bilowda household-ka qofka guriga mas'uulka ah tusaale ahaan anoo kale gurigayga 4 qof aan degannahay aniga xaaskayga iyo labadeena carruurta ah magacaasheena wada gelinay goortaada dhalanaa wada gelinay dan ethnicity-geena wada gelinay waa muhiim midaan ethnicity-gaaga awal waa markii ugu horeysay tookadan lagu soo daro qoomiyadda Soomaaliyeed madow yaa ka tahay markaad black taabtid oo African American black yaa ka tahay awal ma jiri jirin hadda laakiin madow waxaa lagu soo daray ma Soomaali baa ka tahay ma Ethiopiana ka tahay ma Nigeriana ka tahay ma Haitiana ka tahay ma Jamaicana ka tahay waa muhiim marka ma mise African Americana ka tahay oo ku jirta aydan soo marka waxaa leedahay Soomaali baan ka hoos ku qoraysaa Soomaali madow jinsiyadeeda waxaan ka ahay ama qowmiyadeeda ama waxaan ka ahay colorkaas isaga ah qowmiyadana ahay Soomaali ayaa qoraysaa dan inta qof oo guriga kaas u register qof walbana u gelisid dheer baadkiisa dan that's it intaas bas ku weydiina kuma weydiinayo social kuma weydiinayo driver license ID magaca koowaad laba saddexaad goorta dhalatay iyo mataqaanaa iyo cidda tahay madow ma tahay cadaan ma tahay Hispanic ma tahay dan iyo hadana ciddaas yaa ka sii tahay dan waxa ka sii tahay Soomaali qowmiyadda ka sii tahay intaas kaliya waa submit garanaysaa confirmation ku weydiinaya waa muhiim inaan ka qayb qaadano tirikoobkan Mareykanka muxuu ku yahay muhiim Soomaalidana ku nool Mareykanka qiyaastan dhabta ah ma naqaano dawladana ma hayaan anagana ma naqaano ma 1 milyan baan nahay ma 5 milyan baan nahay ma 3 milyan baan nahay ma 2 milyan baan nahay ma naqaano hadaba tirikoobka wuxuu ka qayb qaadanayaa gobol walba magaalo walba inta qof ku nool iyo state ka dhan state Mareykanka dhan inta qof ku nool laba waxaad ka helaysaa xaq magaaladeeda for example Columbus Ohio waxaa lagu qiyaasaa 70 ilaa 100 kun oo qof oo Soomaali inay ku nooshahay haddana tirada rasmiga lama hubo maadaama awal black or African American aan integrate jirnay hadda tirada rasmiga waa la helayaa laakiin cidii buuxiso waa kaliya haddaad buuxin tirkoobku ma jirtid Soomaalinimadana ma xisaabsana laakiin waa inaan noo soo baxda annaga ana 100 kun oo qof oo Soomaali baa ku nool Columbus cashuuraan bixinaa xaqeena u baahannahay laamiyaashana loo dhiso state-ka sanad walba lacagta federaalka u siiyay state-ka lacagteena leenahay iskuulada security-ga jidadka loo dhisaayo ganacsigana lagu taageerayo xaqaas ayaa leedahay haddaad ka maqnaatid laakiin oo aadan buuxinin oo aadan ka mid noqon dadkii tirikoobkan buuxinin ama waraaqdan ignore gareey iska tuuray sidii mataqaana ayaan rate la sheegay dad ayaa waraaqahan iska tuuray fadlan ka qayb qaada tirikoobkan sidoo kale dadka ku nool Minnesota Minneapolis Washington Tennessee meel walba fadlan tirikoobka ka qayb qaataan hana la buuxiyo waraaqdan mataqaana online-ka dadka aan haysan internet ama mataqaana luqadda af Ingiriiska aanan ka buuxin karin dadka waaweyn kaligoodna ku nool waa inay waaridadka ehelkooda caawiyaan
oo la buuxiyaan waa easy waa 15 daqiiqo okay haddaadan haysan qof ku caawiyo maxaa suubinaysaa fadlan booqo magaalo walba waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed xafiis ay ku leedahay tusaale ahaan Columbus waxaa ku nool Somali Community Association gudoomiye Xasan Dheer xafiiskiisa jaaliyadda booqo waa laga caawinayaa waa lagu buuxinayaa waana mataqaanaa si easy 15 daqiiqo ayay ku qaadanaysaa fadlan ha yareysanina tirikoobkan ka qayb qaata muhiim u yahay dhammaan Mareykanka dhammaan Soomaalida ku nool Mareykanka dhammaan Soomaalida ku nool Columbus Ohio waxaan idin leeyahay ka qayb qaata tirikoobkan waa mahadsantihiin waa anigoo Maxamed Faarax oo idin leh qaar ayaa idinkaga tegay